habeen hore suuqa weyn ee Waaheyn ee Hargeysa ayaa gubtay. Dad badan oo ganacsato ahna ayaa ku maalbeelay. Ramadaan, abaaro, dhaqaalihii dunida oo burbur ku jiro, sicir barar iyo hantidii ganacsatada oo heerka hoose iyo heerka dhexe oo basbeeshay. Waa arrin qalbiga uu la ooynayo aadna looga damqado. Dad ayuu suuqaas u ahaa meesha ay naftooda, qoyskooda iyo ummadda kaleba wax ugu taraan. Musiibooyinka daadka iyo dabka Soomaalida aad ay ugu soo noqdeen waqti badan. Qof shalay wax haystay ayaa maanta faqri ah, waana wax aad u xanuun badan. Hargeysa iyo dadkeedaba waxay bilaabeen inay ka soo kabsadaan musiibadaas gaartay si ay u caawiyaan kuwii dhibka gaaray. Soomaalida waa dad dhaqan ahaan is caawiya markay dhibaato timaado, iyagoo aanan fiirinin deegaan, qabiil iyo kala duwanaansho siyaasadeed. Si aan u muujino dhaqankaas quruxda badan ay ummadeena Soomaaliyeed leedahay, walaal ka qayb qaado caawinta walaalaheena Hargeysa.